بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkeenii aan kaga hadlaynay duruusta ramadaanka. darsiga kan ama kelmadatan waxaan ku eegi doonaa qaar ka mid ah axkaamta uu leeyahay ramadaanka. waxaan u hormarinaynaa shuruudda uu leeyahay, shuruudda soonka uu leeyahay. soonku wuxuu leeyahay shuruudo qofka muslimka inuu ogaado laga maarmaan ay tahay. shuruuddiisa waxaa ka mid ah kow, qofku inuu yahay al-islaam, inuu qof muslim uu yahay waa muhiim. hadduusan muslim ahayn ramadaanka kuma laazimayo qofka, kamana ansaxayo gaal hadduu yahay. qodobka labaad, inuu yahay qof qaangaar ah islamarkaana caqli leh, waa laga maarmaan, waa qodobka labaad. qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa qofka inuu awoodo inuu soomo, qof awood u leh. hadduusan awood u lahayn ama xanuun dartii ama da uu yahane, qofka xanuunsan uu iska afurayaa, ramadaanka markuu caafimaad uu iska soo qaleynayaa. hadduu qofka uu da-ay uu noqdo, uu caajiso, uu awoodi kari waayane, isagana raashinkaas unbaa laga bixinayaa. haddii aan laga rajeyneyn qof ama xanuun aan, qofka hadduu xanuunsan yahay xanuunkaasna uu ahayn xanuun uun ka bogsoonay, ama ruux da uu yahay uun hadda kadib uun aan laga sugaynin, qofkaas waxaa laga bixinayaa raashinka. laakiin waxaa laga maarmaana qofka inuu mar walba uu ku dadaalo in cibaadada uu ku dadaalo. hadduu awood u leeyahay uu soomi karo inuu soomo, laakiin hadduusan awood u lahayn, ilaahay subxaana wa tacaala qofku wuxuusan awoodin kuma kalifin. qodobka afaraad ee shuruudda soomka ka mid ah waa qofka inuu qof nag uu yahay oo magaaladiisa uu joogo. halkaa waxaa ku baxay qofka safarkaa soonka kuma waajibayo. isaga ilaahay wuxuu siiyey fursad ah inuu iska afuro, ama uu iska soomo. marka hadduu yahay qof safar ahna wuu iska afuri karaa, laakiin waxaa laga maarmaan inuu soonka isaga dib uu kasoo qaleeyo, waa muhiim. shardiga shanaad wuxuu noqonayaa in haweeneyda inay daahir ay ka tahay dhiigga xaylka iyo nifaaska, inay daahir ay ka tahayna waa muhiim. inta badan masaladan gabdhaha aad ay runtii ugu fiican yihiino markay dhiigga xaylka iyo nifaasku ku dhaco iyaga ma soomaan, kamana ansaxay haddii ay soomaan. marka shantaas shardi ayuu leeyahay soonka. waxaa muhiim marka qofka muslimka ah in arrinta ayada uu ogaado mar walbana uu barto, aad bay qaali u tahay. sidoo kale halkan waxaan rabnaa in iyadana kaga hadalno waxyaabaha qofka soonka ka haleyn kara ee la mufsidaatu sawm. qofkii soomana wuu soonaa, qofkan maxaa soonkiisii ka haleyn kara? 7 shay ayaa iyagana soonka qofka ka haleyn kara. qodobka koowaad wuxuu noqonayaa waa jimaac, in qofkii uu galmo uu sameeyo haweentiisii, uu dharaaracdo maalmeed uu u tagaa. taa ayada waa dembi aad u weyn oo weliba kafaaro adag ay ka waajibayso qofka inuu soomo. hadduu saa sameeyo 2 bil oo xiriir in uu soomo. haddii uu soonka uu awoodi waayane, in ugu horeyn inuu xoreeyo luqon, inuu xoreeyo. maanta lama helayo qof adoon oo la xoreyn, lama helayo. sida awgeed qodobka labaad la aadaya ah in qofka uu soomo 2 bil oo xiriir. hadduu 2 bil oo xiriir uu soomo, uu awood uu kari waayo, uuna awoodi karin, qofka wuxuu sameynayaa inuu 60 miskiin uu quudiyo. marka kafaarada adag ayay leedahay qofka inuu iska ilaaliyo xaaskiisa dharaaracdo maalmeed. qodobka labaad wuxuu noqonayaa sidoo kale waxaa loo yaqaan al-istimnaa, waxyaabaha soonka ka haleyn kara. waxaa loo yaqaan siigada, qofka inuu gacantiisa uu manidii isaga keenaa, waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka soonka ka haleyn kara. qodobka afaraad wuxuu noqonayaa wax waliba oo waxaa ka mid saddexaad ayaraada cuntada iyo cabitaanka. qofka cunto iyo cabitaan haddii uu cunana, iyana waxay ka mid tahay waxyaabaha soonka qofka haleyn kara. qodobka afaraad wax waliba oo cunada iyo cabitaanka booskooda geli kara, sidaas filambooyinka qofka cunada ah oo dadka la siiyo, iyagana waxay ka mid waxyaabaha qofka afurin kara, soonkana ka haleyn kara. qodobka shanaad wuxuu noqonayaa in qofka uu istoobo, toobinta. qofkii wax tooba iyo kan toobayaba, nabiga wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in soonkooda uu ka halaabayo, oo kan toobaya kan la toobayaba soonkooda inuu halaabo. nabiga wuxuu yidhi
afdara alxaajimu walmaxjuumu. kan la toobayaba intaba soonka wuu ka halaabaya. qodobka lixaad waa in muxuu haweentii uu ka yimaado dhiigga xaylka iyo nifaaska iyadoo sooman, waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka soonkiisii ka haleyn kara. qodobka toddobaad wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaano in qofkii uu matago ama uu ismatajiyo si kas ah. yacni qofki inuu ismatajiyo si kas uu isku matajiyo waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka soonka ka haleyn kara. laakiin waxaa halkaa ku baxay hadduu isaga mataga uusan iska keenin ee uu iska yimaado, kaa isagaa soonkiisa kama haleynayo. laakiin hadduu isaga si kas ah isku matajiyo waxay ka mid tahay waxyaabaha soonkiisa haleyn kara. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.